kuna wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabe madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dib ugu laabtay xafiiskiisa wasaaradda gaashaandhigga. madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu xoogga saaraya sidii ciidamada xoogga ee dalka Soomaaliya dib u qaabeynaya dib u dhis loogu sameyn lahaa isla markaana ay ciidamada xooggu dib u soo laabtaan kadib burburkii baasana ee Soomaaliya ku dhacay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dib ugu laabtay xafiiskiisa wasaaradda gaashaandhigga oo ku shaqeynayay muddooyinkii u dambeeyay. madaxweynaha horey la soo shaaciyay inuu shaqadiisa u wareejiyay wasaaradda gaashaandhigga ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay dib ugu soo laabtay xarunta madaxtooyada iyadoo uu soo afjaray khilaafkii ka taagnaa golaha shacabka. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale maalintii shalay ahayd ka soo laabtay dalka boqortooyada Saudi Arabia halkaas oo ka qayb galay shirka jaamacadda Carabta. talaabada uu maanta dib ugu laabtay wasaaradda gaashaandhigga ayaa muujinaysa culayska uu saaraya howlaha dib u habeynta ciidanka xoogga dalka. madaxweynaha ayaa horey muddo bil ah uga shaqeynayay xafiiskiisa wasaaradda gaashaandhigga isagoo ah taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka. waxay sidoo kale uu ku guuleystay in la sii ambaqaado qorsheynta isku dhafka ciidanka iyo diiwaangelintooda. madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu sareeya ciidamada xoogga ee dalka ayaa waxa uu qorsheynayaa in dagaal saf ballaaran ah lagu xoreeyo dalka isla markaana dagaal xoog leh lala garo ururka al-shabaab. saraakiisha dowladda ayuu ku amaanay howlaha qaran ee ay u hayaan shacbiga Soomaaliyeed.